kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada page-ka YouTube-ka Caasimada Channel oo warar iyo warbixino kala duwan iyo barnaamijyo aad ka daawataan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waran qodobada intaanu barnaamijka ku jirnaa daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona golaha iskaashiga dawlad goboleedyada oo qarka u saaran in ay burburaan waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin amuurtaasi ku saabsan sidoo kale qodobadaad maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka oo musuqmaasuq ku eedeeyay xukuumadda iyo gobolka Banaadir iyo 20 milyan oo dollar oo la leeyahay waxaan kaloo barnaamijka ku eegi doonaa maxay tahay ujeedada safarka farmaajo uu ku tagay Talyaaniga iyo waxa ka dambeeya kadib go'aankii qaramada midoobay ee la tiriya yasmo iyo isla weyni kula dhaqmaysa dalka Djibouti waxaad kaloo daawan doontaan qorshaha ciidamada badda Ethiopia kuma wajahno oo kaliya Soomaaliya iyo amni darrada Muqdisho oo la ogaaday in ay sabab u tahay isbeddelada la sameeyay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka xog waran u diyaar garooba daawadayaal daawashada barnaamijka taariikhduna waxay ku beegan tahay 19 bisha November sanadku waa 2018 aynu guda galno barnaamijkii xog waran oo faahfaahsan guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka dawladda ee golaha shacabka ayaa maanta soo saaray warbixin xasaasi oo musuqmaasuq xoogan ku eedeeyay xukuumadda khayre iyo maamulka gobolka Banaadir warbixinta guddiga ay soo saareen ayaa looga hadlay wax isdabamarinta iyo sida khaldan ee loo maamulay miisaaniyadda dalka laga soo bilaabo January ilaa Agoosto ee sanadkan waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in la yahay meel ay aaday 20 milyan oo ka mid ah 50 milyan oo dawladda Sacuudiga ay u deeqday Soomaaliya iyadoona xukuumaddu ay soo gudbisay oo kaliya kharashka 30 milyan guddigu waxa uu si gaar ah u soo jeediyay in wasaaradda maaliyadda iyo gobolka Banaadir laga hakiyo miisaaniyad maaliyadeedka maadaama ay xatooye ku kaceen guddiga ayaa sidoo kale waxaa inta dhowraha guud iyo waliba xisaabiyaha guud si baaritaano ay ugu sameeyaan hay'adaha dawladda ee sameeyay wax isdabamarinta iyo sida khaldan ee loo maamulay habka maaliyadda ee dalka waatay daawadayaal qaybihii hore ee barnaamijka xog waran ayaa daawanaysaan qodobada kale ayaynu eegaynaa waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdu hogaaminayana waxay u ambabaxeen dalka Talyaaniga kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay dawladda Talyaaniga madaxweynaha iyo waliba madaxda dalka Talyaaniga ayaa ka wada hadlay doonada dib u xoojinta iskaashiga xiriirka labada dal iyo dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga sidoo kale labada dhinac ayaa waxa isla lafaguri doonaan danaha kala gedisan ay wadaagaan labada dal iyo sidii looga mari dhalin lahaa dalka Talyaaniga aynu wadaagnay xiriir taariikhi ah dawladdeenu waxa ay dadaal gelinaysaa sidii dib ay ugu xoojin lahayd maadaama dawladda Talyaaniga ay kaalin weyn ku leedahay dib u dhiska Soomaaliya saaxiibaduna ay yihiin labada shacab ayuu yiri madaxweyne Farmaajo dhankooda mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka qayb ah wafdiga madaxweynaha ayaa kulamo ku qotoma dib u habeynta xiriirka labada dal iyo iskaashiga waxa ay la yeelan doonaan mas'uuliyiinta dhigooda ee dalkaasi Soomaaliya Talyaaniga ayaa waxa ka dhaxeeyay xiriir soo jireen taasi ayaa saldhig u ah dadaalada joogtada ah ee madaxda labada dal ay ugu jiraan sidii looga maray dhalin lahaa qorshaha iskaashiga iyo waliba xaqiijinta danaha ay wadaagaan labada shacab ee saaxiibka booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha ayaa qaadanaysa muddo 3 maalmood waxaana wafdiga madaxweynaha ka qayb ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Axmed Ciise Cawad agaasimaha waaxda madaxtooyada Dr. Amina Saciid Ali la taliyaal iyo waliba diblomaasiyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalk ee Soomaaliya wata daawada wali barnaamijkii xog waran ayaa si toos ah u daawanaysaan page-ka YouTube-ka Caasimada Channel ayaad naga daawanaysaan telefishinka Al-Carabiya ayaa boggiisa ku qoray warbixin lagu sheegay in dawladda Qatar ay taageerayso Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixintan ayaa lagu sheegay in Robo uu yahay qayb ka mid ah qorshaha Qatar ay isugu ballaarinayso saameynteeda siyaasadda Soomaaliya Qatar ayaa la sheegay in markii hore ay qayb ka ahayd in Robo uu ka soo baxo Al-Shabaab isla markaasina uu noqdo siyaasi caadi ah oo dadkiisa dhinaca ka raaca sida warbixinta lagu yiri dad xoogaala ayaa sheegay in Robo uu xiriir la leeyahay Qatar ayaa warbaahinta Qatar Al Jazeera waxay gacan ka siinaysaa isku dayda sumcadiisa dib ugu dhisayo kadib markii muddo dheer Al-Shabaab ka tirsanaa warbixinta Al-Carabiya ayaa u muuqatay mid dawladda Qatar ay ku eedeynayso in hogaamiye argagixiso u gacan gelinayso awoodda mid ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya Al-Carabiya waxa leh dawladda Sacuudiga oo xurguf ay kala dhaxayso dawladda Qatar ujeedka hore ee loo aasaasay Al-Carabiya waxa ay ahayd
in lagula dagaalamo telefishinka aljazeera ee qatar laga leeyahay. sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa horey ugu eedeeyay dowladda qatar inay taageerto kooxaha reer galbeedka argixisada ay ugu yeeraan sida ikhwaanulmuslimiinka dalka masar iyo kooxda xamaas ee falastiin. warbixinta alcarabiya row kula xiriirtay qatar waxa ay suurtagal tahay in ay qayb ka tahay ololaha dowladda dalkaasi lagu eedeynayo inay ka gacan siinayso kooxaha argixisada sida lagu yiri warbixinta. waa tahay weli barnaamijkii xog waran ayaa daawanaysaan pageka youtube-ka caasimada janal ayaad si toosan nooga dhagaysanaysaan. iminkana waxaynu eegaynaa qodobada kale ee barnaamijka. dowladaha Eritrea Djibouti ayaa kala taagan laba jiho oo aad u kala durugsan. dowladda Djibouti waxay doonaysaa in heshiiska isfahamka ka hor dhexmaray Eritrea laakiin Asmara ay u muuqato in aysan u jeedin. golaha ammaanka qaramada midoobay ee Eritrea waxa ay ka qaaday cunaqabateyntii dhinaca hubka ee saarneed muddo ka badan 10 sannadood ku siman. dowladda Djibouti ayaa ka mid ahayd xoogagii ku guuleystay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay markaas ku qanciyaan sanadkii 2009 in Eritrea la saaro cunaqabateyn, laakiin Djibouti ayaa waqti ka mid ahayn dadaalada Eritrea looga qaadayo cunaqabateynta hubka ee saarneyd. wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa fariimo kala duwan oo 72 saacadood ugu dambeeyay xayiraadii laga qaaday Eritrea waxa uu Twitterkiisa ku qoray fariimo kala duwan oo ku sheegay in dowladda Djibouti ay diyaar u tahay inay wanaajiso xiriirka Eritrea isla markaasna ay soo celiso xiriirkii kala duwanaa ee labada wadan markaas dhex mari jiray. wasiir Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu fariimihiisa ka mid ahaa wakiilka Djibouti ee qaramada midoobay. warkiisa waxa uu ku yidhi golaha ammaanka kama uusan horjeensan Eritrea laga qaado cunaqabateynta ayuu yidhi sibuu yidhi labada wadan ay dib u bilaabaan wadahadal markaasi wax dhisaya. mar labaad wuxuu wasiir Yuusuf uu sheegay in dowladda Djibouti ay dhinaceeda ay ka shaqayn doonto wax kasta oo lagu soo celinayo xiriirka labada dal laguna xalinayo farqiga u dhaxeeya Eritrea iyo dalkiisa. waxa uu xusay in dowladda Djibouti ay diyaar u tahay in ay ku guuleysato kulankii labaad ee madaxweynaha Eritrea iyo Djibouti ay ku yeesheen dalka Sacuudiga bishii September ee sanadkan, laakiin Eritrea marnaba sooma hadal qaadin Djibouti waxaana meesha ay ka saartay in xataa kelmad ay ka tiraahdo hadallada dabacsan ee Djibouti ay ku doonayso inay kula saaxiibto Eritrea. dadka diblomaasiyiinta ee falanqeeya ayaa aaminsan in Eritrea ay laabta ku haysato qorsho ka duwan midka Djibouti ee dabacsan. 72 jirka Eritrea hogaamiya Master Afwerki ayaa waxa uu maanka ku hayaa dagaalkii Djibouti ku dhexmaray uu sabab u ahaa xiraada la saaray dalkiisa iyo go'doonkii Eritrea ay ka gashay dunida iyo gobolka Geeska Afrika. waxa uu muuqata in Master Afwerki maanta uu doonayo inuu ka aarsado dowladda Djibouti oo uu geliyo go'doon la mid ah kii ay gelisay dowladda Eritrea isaga oo hoosta ka gashay dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya oo waagaasi la saftay dowladda Djibouti. si kastaba haatee culayska saaran Djibouti iyo culayska ka dega Eritrea waxa uu ka mid yahay dabaylaha isbeddelka ee ka socda Geeska Afrika oo hormuudka u yahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. waata daawada qaybihii dambe ee barnaamijka xog waran ayaynu soo gaarnay. isbeddello badan ayaa lagu sameeyay saraakiisha ciidamada iyo laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in uu xiriir la leeyahay xaaladaha amni ee magaalada Muqdisho. dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel badan waxay ku samaysay saraakiisha ciidamada dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga waxaana taasi khubarada dhanka ammaanka ay ku sheegeen dhibaato inay ku tahay ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Korneel Cabdi Aadan Barre oo ah khabiir dhinaca ammaanka waxa uu sheegay in isbeddello badan ay saraakiisha ciidamada iyo xisaabtan la'aanta hay'adaha ammaanka ay qayb ka tahay ammaan xumada Muqdisho. waxa uu sheegay inay adkaanayso marka isbeddello isdaba jooga uu noqdo isfahamwaaga ciidamada ammaanka iyo saraakiisha ciidamada ee ku cusub ee xilalka loo dhiibayo. taasi ay keeni karto in isfahamwaa amaba u wada shaqayntu ay sii xumaato, ay keeni karto inaysan si wanaagsan u wada shaqaynin. inkastoo aysan wanaagsanayn isbeddelka haddana waxa aan dareemayaa ciidamada degmooyinka ka shaqeeya iyo kuwa guud ahaanba ammaanka ka shaqeeya haddii aysan isfahamsanayn aan lala xisaabtamaynin waa dhibaato kale. sidoo kaleeto isbeddel badan ayaa saraakiisha waxaa qayb ka kuwa ammaandarrada Muqdisho ayuu yidhi Korneel Barre. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa ah mid aan la isku halayn karin waxaana ka dhaca toogashooyin ay samaynayaan kooxda Daacish iyo Al-Shabaab oo dhexdooda iskhilaafsan.
waatahay daawada qaybii dambe ee barnaamijka ayaynu dul taagannahay sida la wada ogsoon yahay golahan waxaa la aasaasay kulankii madaxda shanta maamul goboleedyada isugu yimaadeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Aasaaska golaha ayaa ahaa mid lagu fududaaday oo micno badan aan ku dhisnayn mana lahayn hadaf fog oo keeni kara sii jiritaanka golaha. Waxa uu ahaa golo si kala fogeyn ah wadajirka iyo midnimada Soomaaliya, taasi waxa ay keentay in Soomaalidu ay soo dhaweyn golahan waxa uu ku dhisnaa dana gaar oo ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada ayaa ujeedkiisu ugu muhiimsan uu ahaa in maamul goboleedyada ay khalkhal geliyaan dowladda dhexe. Sidaas daraadeed waxa uu si toos ah uga hor imaanayay dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Wax kasta oo ka soo horjeeda dastuurkana waa baadil. madaxda maamul goboleedyada hadday ka shaqaynayaan danta Soomaaliyeed waxay aasaasi lahaayeen golo iskaashi oo ka shaqeeya amniga, siyaasadda loo dhan yahay iyo ilaha dhaqaalaha. in aanan waxba u qabsoomin maamulada waxaa daliil u ah marka ay isku imaanayaan waxa ay isku soo maraan hawada waxaana kharash badan ay ku bixiyaan diyaaradahaasi. madaxda maamul goboleedyada mise hogaamiye kooxeed. madaxda maamul goboleedyada astaamo badan la wadaaga hogaamiye kooxeedyada soo maray dowladdii kacaanka kadib waxaa tusaale inoogu filan hadalladoodii ahaa halkan aan ka taliyo dowlad lama shaqaynayo, dowladdu waa sidaan rabno ha yeesho, dowladdu waxay ka talisaa Muqdisho, inta kale annagaa ka talina waxyaabo kale oo ka dhana dowladnimada. ugu dambeynna golahan ayaan sii jiri doonin maadaama laba xubnood oo lafdhabar u ahaa golaha ay isaga baxeen, madaxweyne Waare iyo Shariif Xasan oo ahaa gudoomiyihii golahan. sidoo kaleeto waxaa haatan xaalkiisu u dhow yahay madaxweyne Xaaf oo isaga baxaya golaha maadaama uu duruufo badan ay haystaan. sidoo kaleetana waxa uu rajo badan aan laga qabin soo laabashada Cabdulle Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Madoobe oo labada waqtigooda uu dhammaaday, doorashooyin adagna ay wajihi doonaan maalmo kooban kadib. sidaas daraadeed ma sii jiri doonaa golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo ku dhisan dana yar oo gaar ah oo ka dhan ah danta guud ee dadka Soomaaliyeed oo iyaguna laga guuleystay. waata daawal waxaan soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyay ee barnaamijka xog waran. dowladda Ethiopia ayaa lahayd ciidamo badeed xilligii dowlad wadaag ay hayeen. dowladda Eritrea ayaa lahayd ciidamo badeed xilligii dalweynaha ay wada hayeen Ethiopia iyo Eritrea wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. laakiin markii Eritrea ay ka go'day dhul ahaan dalka Ethiopia waxaa meesha ka baxay ciidankii badda ee Ethiopia. dhismaha iyo weliba qalabaynta ciidamada Ethiopia ayaa waxaa la sheegay inay ku baxayso dhaqaale badan maadaama horey ay u xooganaayeen ayna haysteen qalab iyo tababar wanaagsan. dadka falanqeeya arrimaha ciidanka badda waxay sheegayaan dhismaha ciidanka badda ee dowladda Ethiopia ay muhiimadeeda koobaad aysan u ahayn biyaha badda ee Soomaaliya balse ay jiraan dalal kale oo ka muhiimsan. dalka Eritrea ayaa la aaminsan yahay in muhiimadda koobaad uu yahay ciidamada badda ee Ethiopia, waxaana ahmiyadda labaad u ah dalka Djibouti, iyadoo Soomaaliya la sheegayo inay kaalinta saddexaad uga jirto. ciidamadaasi ayaa ujeedada ay leeyihiin waxaa dadka falanqeeyaasha ah ay ku sheegayaan inay tahay inay ilaaliyaan dekadda Ethiopia ay doonayso in ay maalgashi ku samayso kuwaas oo gobolka ku yaala, waxaana dekadda ugu horeysa ee loo maleynaya in ay yihiin kuwa ku yaala Eritrea, Djibouti iyo Soomaaliya oo haatan xiriir wanaagsan oo Ethiopia kala dhaxeeyo. guud ahaan daawadayaal waxaan intaas ku soo afjarayaa barnaamijkii xog waran oo si toos uga daawanaysan page-ka YouTube-ka Caasimada Channel. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan nagu soo beer oo hadda subscribe saar si wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe aad ula socotaan insha Allah.